السلام عليكم waxaan ku bilaabaynaa ciyaarihii isboortiga eenu daawanay ilaa xalatuna daawan ciyaartii u fiicnayd eenu soo marro oo ciyaaro ka wanaagsan mar dhow baynu ka sheekeynaa laakiin ciyaartii lagu bilaabay waxay ciyaartii masaarida iyo Australia saa taqaaniin maaha wadan isag ku saabsan amaba aad harfaan waa ciyaarta kubadda cagta uma yaqaan sanadii dhawaayay soo baxeen oo xagga Asia iyo ay runtii aad iyo aad ugu wanaagsanayeen laakiin waxay yaqaan ciyaarta cricketka oo aad loogu yaqaano ay aad u ciyaaraan marka Australia xalito way la soo baxeen ciyaaro oo way si fiican bay u muujiyeen waxaana sanadaha soo socda ay ka mid noqon doonaan wadamada qaaradda Asia iyo waliba koobka iyo adduunka iyo meelo badan ka soo baxda ciyaartaas waxa masaarida markiiba ugu horeysay gool iska dhalisay gool bay dhaliyeen iyaga dhaliyo cashuur ba goolka u dhaliyay hase yeeshee mar dambeeto ayay gool iska dhaliyeen ciyaartii gool iyo gool markii u dhamaatay markii dambeeto waxa loo dhigay gool kulaadkii markii loo dhigayna masaarida ayaa ku badiso 4 gool iyo 2 gool ayay ku badiyeen marka masaarida waxay noqdeen wadankii labaad ee Afrika ay soo baxa marka lagu daro wadanka Morocco Afrikada madoobeed iyada waa u dhamaatay waa u dhamaatay xaaladda waxa ugu dambeysay kooxdii Ghana waa laga badiyay Cape Verdena waynu ka sheekeyn doonaa iyadana waa laga badiyay laakiin wixii soo baxay waxay noqdeen iyagoo qayb ka qaadanaya koob 16 kooxood ee soo haray waxa weeye labada kooxood ee kala ah Morocco iyo dalkaasi masaarida ciyaartaasi xaaladda markaas ay ku dhamaatay masaaridu ciyaarta ku xigtay xiisaha leh oo ka mid ahayd ciyaaraha adduunka soo maray ciyaar la daawado ciyaartii ugu fiicnaa mid ka mid ah ayaa waxa ka mid ahayd ciyaartii wada ciyaarin Argentina iyo Cape Verde ciyaartaasi waxaan leeyahay sanad dambe soo socdana waa la sii daawan doonaa maaha kuwa ciyaar lagu sii deynayo ciyaartaasi xaaladdu markiiba Messi ayaa gool dhaliyay goolkiisii 20aad ayuu ahaa oo uu ka dhaliyo koobka adduunka aakhiradiisa iyo koobkii 7aad ciyaar koobkan hadda iminka lagu jiro isaga ugu badan 7 jeer ayuu shabaqa ku hursaday ciyaarta Messi marka waxa uu noqonayaa dee maqaasa waxa laga yaabaa sanadda soo socotay 30 kana inuu ciyaaro laga yaabaa oo isaga iyo ninka la yiraahdo Ronaldo labaduba waa ninka Ronaldo ka weyn yahay dee 42 waa ciyaar karaya waliba waa nin la yiraahdo xoog weeye marka ciyaartaasi ayuu xaaladdu waxay mar dambeeto ayaa haddana waxa ninka Duarte markii Messi goolkaasi dhaliyay gool fiican ayuu Duarte ka dabayay Duarte markuu ka dabayay gool iyo gool ay noqotay waxay ku dhamaatay ciyaarta inta waqti dheeraad lagu daray markii lagu daray ayaa waxa keenay markii 2 daqiiqad socotay baa ninkii la oran jiray Martinez Manchester United awgaab ninkaas gool u dhaliyay kooxda Argentina goolka uu dhaliyay marka waxa la siiyay waaba dhamaatay marka waxay ku dhacdeen maanta ciyaartu waxay 2 gool hal inay tahay ayaa ninka la yiraahdo Duarte waa markii goolka dhaliyay Cabral baa goolka labaad u dhaliyay oo wuxuu gool la yaab leh u soo day markii 10 minute ka bacdi markii uu dhaliyay Martinez ayuu gool dhaliyay 10 daqiiqo marka halkaasi waxay noqotay gool iyo gool bay noqotay hase yeeshee goolka dambe ka bacdi ayay kooxdii nasiib daro kooxdii Fosina alla muxuu xalay gool badbaadi allan warnikaasi ninka waxaan u maleynayaa 40 jirkiisaas inuu yahay in koox badan oo adduunka ay u kartan doonaan oo qaadan doonaan hore wateen u sheegnaa Shiinaha dalka Shiinaha maxaba la siiyay waxa la yiri shirkadii ugu waaweynaa u tartamaya sidii xayisiis iyo daayado iyo wuxuu sameeyo marka ninkii xalaytu Fosina wax badan ayuu badbaadiyay markaas yeeshee markii ay ciyaartii goor dambe tahay oo siba dhamaanayso ayay gool iska dhaliyeen kooxda kooxdii Cape Verde gool bay iska dhaliyeen sida ajligeed ayay kaga baxeen koobkii adduunka Cape Verde xalayto laakiin sharaf iyo magac ayay soo jiiteen adduunka meel walba imika Cape Verde ba laga hadlayaa nimankii kale ee Afrika maxay ahayd adigu sheeg Senegal Ivory Coast xagee mareen lama hayo way dhaqaaqeen kuwaas socdeen marka Messi wuxuu leeyahay xalayto goolkiisii 7aad ee koobka adduunka iyo goolkii 20aad ee uu koobka ciyaaraha finaliska ee kama dambaysta ahayd adduunka uu ka dhaliyo marka ninkii khatar waa meel fiican buu wax marinaya record wanaagsan buu dhigayaa in la gaari doono in kale to garan mayno
ciyaartaas oo saasay ku dhamaatay. ciyaar kaleeto oo iyadana la ciyaaray waxay ahayd Switzerland iyo Algeria. Algeriana kuwii Afrikada raacay bay ahayd, iyaduna kamid ahayd oo 2-1 baa lagaga badiyey. Portugal iyo Croatia oo iyaguna wada ciyaaray. Portugal watay daawanay taa habeen hore, waxay iyadana 2-1 bay ku badisay. marba Israa'iil waa badinaysaa. goolka mid kamid ah waxaa dhaliyey Ronaldo. goolka uu dhaliyay dad badan baa lahaa, wuxuu bisinka bismillah buu yiri, bismillah bisinka uu qabtay bay yiraahdeen dad badan oo waxa la yiraahdo live reading ama akhriska dibinta. dad baa jira khubaro ku ah wadankan Ingiriiska ama caalamka oo dhanba, oo waxa qofku marka aan garanaysaa maxaa tahay uu hadlo ama uu codkiisa aadan maqlayn, laakiin dibintiisa maqli doontaa. imika haddaan idin iraahdo maxaan idin iri ya, dad badan baa laga yaabaa inay gartaan. mar kale aan idinku celinayaa waaya, dad badan iga soo jawaaba waxaan idin iri, hadal baan idin iri. marka hadalka aan idin iri kasoo jawaaba. badanaaba xitaa marka ay ereyo gafa ama cay ama waxyaabo caynkaas oo ay sameeyaan ciyaartooyda qaarkood, live readingaasaa lagu sameeyaa. ama dad ba jaamacado ugu soo PhD ku qaato oo jaamacada ka soo baxo oo arrintaasi aad u yaqaana. marka ciyaarihii saasay ku dhammaadeen. maxaa ahayd qaybtii 12aadna saasay ku dhamaatay. waxaan u gelaynaa qaybtii 16aad. qaybtii 16aad baynu hadda eegaynaa, balse la isku soo begnay. maanta bay bilaabanayaan. maanta waxaa ugu soo horeynaya oo ciyaaraha Canada iyo Morocco ugu soo horeynaya. waxaa kaloo ciyaaraya Paraguay iyo Faransiiska. labada ciyaaroodba maanta ay dhacayaan, loo nasan maayo. bisha shanteedana ciyaara iyaguna jira laba ciyaar, Brazil iyo Norway baa wada ciyaaraya. ya Brazil iyo Norway waataynu sii sheegnay, oo ninkii dheeraa iyo Gabriel iyo Haaland waxaan kala qabsan doonaa, waynu eegi doonaa. Mexico iyo Englandna way wada ciyaari doonaa. maxaa ahayd garoonka ay ku wada ciyaareen Mexico Stadiumkeeda City weyn waa kii uu 1986 Maradona hand of God amar ilaahay ku dhashay buu yiri, gacanta uu kaga dhaliyay Ingiriiska ma iloobin. wilaa imikada waa lagu soo celiyaa goobkii. waa garoonkii buu ahaa 86 lagu qabtay Mexico, ciyaaraha koobka adduunka lagu qabtay ayuu halkaasi ahayd. garoonkaas ay ku wada ciyaarayaan Mexico iyo England baa ku wada ciyaaraya. bisha 6deedana waxaa jirta Portugal iyo Spain, labada wadan oo jaarka ah. waa laba wadan oo iyaguna ciyaaraha ku fiican oo balde ya Portugal iyo Spain. Spain waa Ignis balde waa sanadka sidii hore ma aha, laakiin bal waa eegnaa Portugal inay iska celiyaan. Portugal halkaasina waa taa weey. bisha waxaa sida loo ciyaaraya waxa weeye markaa taasina waa taa. bisha 7deeda waxa ciyaaraya Mareykanka iyo Belgium baa iyadoo ciyaaraya. waxaa kaloo wada ciyaaraya Argentina iyo Masaarida. iyo Argentina way isku soo beeneen nimankii Masaarida ahaa. Argentina bay ku soo beegmeen haddii meelaha kale iska maxaa ahayd Switzerland iyo Colombia oo ciyaaray. Colombia Ghana ay reebtay. Ghana waxay raacday Afrikadii Madoobeed. waa ruuxan kuwaas tawakkul ala Allah waa tageen. marka 16kaas ciyaarood waa noo soo horay 8 ciyaarood 1 2 3 4 5 6 7 8 ciyaarood baan daawan doonaa ilaa bisha 7deeda. bisha 7deedana 8 dhamaadkii baa loo gudbi doonaa. 8 dhamaadkana waxaa ku xigi doonaa 4 dhamaadkii. 4 dhamaadkiina finalkii iyo maalinta iyadana loo kala tartamayo kaalinta 3aad. barnaamijkeennii isboortiga maanta intaasaan kusoo gabagabeynayaa. guuldaradii iyo sidii xarakada lahayd ee u badisay kooxda Cape Verde iyo dadaalkii ay sameeyeen oo ay Afrika magac u yeeleen, iyaguna magac isu yeeleen Fosinha iyo Cape Verde. hambalyaanu leenahay. assalaamu calaykum.